asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan saaxiibayaal idiinkiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad inoo maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan oo aad haadahan oo kale ka dhegeysataan raadiyaha kismaayo waxaa barnaamijka saaka idiin tabinaya anigoo ah cabdiftaax cali maxamed daljir saaxiibada qaaliga markale ismaqal waxaana wanaagsan ayaan hawada markaa idinka leenahay barnaamijka wax saaka farsameynaya saaq socoto anigoo daljirna markaa waa idiin daandiin doonaa sida caadada ayd saaxiibaan intaan barnaamijka u gudagelin waxaan soo qabanayaa heeskii markaa mid ka mid a kaalimaha sugaanta heeskii hashi maandeeq fanaaniinta hobalada waa bari kaboosho waxaan dib aynu isugu soo laaban doonaa
saaxiib yaal inta haddaan ku dhaafno kaalintaas suganeed fanaaniinta howlada waa beri iyo heeskii hashi mandeeq dhegeystayaasha aynu jaaniskooda siinna hadda si barnaamijka ay nagala qayb galaan 278 ayaad saaxiib yaal soo wici kartaan waa 278 si markaad uga warbixisaan xaaladaha aad ku waaberisateen dhegeystayaal ayaan ku jira asalaamu calaykum hello السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga walaal halkaa joogto عبد الفتاح البرج محمد صاحب سر عاوز صباح ونكسن أروس وبدا مع كسر عبد الرحمن ير على كسو بسجك نودا عبد الرحمن صاحبك برنامجك soo dhow ka waran halkaas sidee lagu waabiristay تعبك وما صنت على الجو مع بلوسة متى لأنا الوصول قواعد نحسوا برشة ما شاء الله بس بالرواقة الله سبحانه وتعالى وفضل على تعبك بس بالرواقة أي dadku maxay hadlayaan markaa ما شاء الله بس بالرواقة هاك السلام عليكم برماشنا ودادني سكر السماء والسبح ونكسب الروس وبان ذيك السنة عند جامعة الصبرية ما مداهر دماء حتى أفريقيا دماء حتى مشوكو وكذا سبح ونكسب الروس وبان كلها تعب سلام قراءة جيوان تقوى عن السبح ونكسب كلها waayahay aad baad u mahadsan tahay subax lamid ah ayaan ku leeyahay dhegeystaha kale ilaa ku jira ayaa siinaya jaaniskiisa si isna barnaamijka nagala qayb galo taleefanka lambarkiisu yahay 278 14 ayaad saaxiib yaal inaga soo wici karaysaan dhegeystaha ilaa ku jira asalaamu calaykum waayahay aad baan uga xumahay dhegeystahaasi ismaqalkeena ayaa xumaaday mar kale ayaan u rajeynayaa lambarku waa 278 ayaa si toos ah usoo beegsan kartaan dhegeystaha leenka ku jira hello السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga walaal iyo halka markaa ku sugan tahay walaal waa ubax joogta xaafadda Nuur Macuun ubax soo dhow ka waran sidee halka loogu waabiristay walaal xaafadayda hadda warbixin kooban ka siiyo xala iyo joonabtan ku seexanay saakama lacana ayaa lagu soo kacay mar haddii la soo kacay goobaha waxbarashada caafimaadka goobaha gaadiidka isdhexgalka bulshada walaal waa jawiga mid aad iyo aad u degan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadaas iskale waayahay halka ayaad subax wanaagsan ka leedahay markaa halkan waxaan si wanaagsan ka leeyahay adigoo barnaamijka sidan quruxda badan noogu daadiyinayo radio Kismaayo siyaasiyiinteeda dhammaan ayagoo isku duwan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaashayda dhammaan anigoo kala qaadaynin aadkaan u jeclahay inta maqalkayga iyo muuqayga taqaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal qaali markale waxaan ku leeyahay subaxda quraacda jooga caafimaadka ku wanaag waayahay aad baad u mahadsantaa walaal subax lamid ah ayaan ku leeyahay waxaa fudda inagu soo haya saaxiib yaal warkii subaxnimo oo uu saaka isku soo dabaridayo waraayaga axmed maxamed toronto balse intaanu ka gaarayna warka subaxnimo aanu ku sii yarsugno qadarada sare u qaadista adeega bulshada dib aynu isugu soo laaban doonaa wadiga kadoloobo kaliya fikiraya maxaa kugu dhaco jira cisbitaalladan kulligood ku kastood u tagtaaba waxaad ku wareertay kiisaadan fahmayn bay kuu sheegayaan idilkood arag kugteeda dheer iyo madaxeeda koombada ma adoo Kismaayo joogo kaafi specialist helayaan caafimaad ku wareertay waan kugu kalsoonay kaafi specialist hospital waxaan ka helay ii sheeg dhaqaatiirta ka helaysa kaafi joogta hadda khuburo weeye kulligood oo ku fiican daweynta kaalayo balaan kaafi specialist hospital caadi ma aha kolkaase waxba ku dhiman qalabka la isku keenay kaafi uu ku shaqeeyo كمبيوتر kala jaado kuwan intigoodu sareeyo kulli waa wada digital kaafi specialist hospital haka weecan aha kuma kala qaadino warka waan iska koobay kaafi specialist hospital qalabku ku shaqeeyo dhaqaatiirta ka helaysa ka sareeyo tilmaanta kala yadna soo dhow kaafi specialist hospital waa isbitaal casri oo aad u qalabaysan isbitaalka waxa uu ka daweyn doonaa daweynta cudurrada carruurta cudurrada guud qalliimada guud cudurrada haweenka iyo adeega dhalmada oo delivery ah oo 24 saacna oobina iyo adeega gargaarka degdega ayaad ka helaysaa kaafi 24 saac waa diyaar shaybaar casri ah dawo tayo leh sidoo kale isbitaalka waxaad ka helaysaa kombiyuutarka warku jirta oo casri ah kaasoo loo yaqaano Doppler laguna ogaado burooyinka raajiyo ayaa u sii dheer sidoo kale waxaad ka helaysaa kombiyuutarka wadnaha casri ah ECG iyo echocardiograph dhaqaatiirta aad ka helaysa ee ka howlgasha kaafi waxay isugu jiraan Soomaaliya ajaanib waxaana kamid ah Dr. Maxamed Ciid oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta cudurrada haweenka oo dhashay wadanka Suuriya sidoo kale waxa uu isbitaalku leeyahay ambulance 24 saac xigan cisbitaalka kaafi waxa uu ku yaalaa xaafadda Calanley gaar ahaan waxa uu dhinaca ku hayaa xawaalada Dahabshiil waxa uu ka soo horjeedaa Hotel Masha Allah faahfaahin kala xiriir
telefoon lambar eber 6 ama eber 6 ama eber 6 haddaba horey u gaar u hamoogaan cisbitaalka kaafi. adeegii la tabaayay een isgaarsiinta Somnad ayaantan ka suganay adeegyadii aanu raboonay adeegii isu keenay adeega jeeb la bilaawi ogaalkeeda lahaa jeeb isticmaal oo jaarka hoyga ku dhib adigoon u raacin gaadiid ama aan lugayn khidmadii internetka iskuulka lacagtiisa biyaha isticmaashay isaga fududeeyay adeega jeeb u adeegso Somnad bulshadeeda u keentay ku xira xisaabtaada Salaam Banki kuna kaasa jeeb gudihiisana ilaa $500 adeega jeeb uga shuba airtime iyo data internetka ugana qaado abaalmarin 30% dheeriya EFC ayaad lacag ugu diri kartaa laguguna soo diri karaa adeega jeeb si bilaash ah adeega saadiya taqaanay iyo saalkaad garanaysay adeega jeeb waad ugu diri kartaa laguguna soo diri karaa adeegyadii aad tabaysay ayuu adeega jeeb isu keeno urusho ku kulmiyay adeega jeeb ku adeego adeegaagu ha ku sahlanaaday haddaba raac tilmaamahan si aad u isticmaasho adeega jeeb fura adeega jeeb garaaca xadig 810 afargees kadib geli binkaaga cusub ugu haraagaaga garaaca xadig 810 afargees kadibna geli binkaaga dirso lacag oo garaaca xadig 810 afargees lambarka xadig lacagta afargees markaad EFC uga dirayso jeeb garaaca xadig 712 xadig lambarka xadig lacagta kadibna afargees xirmo qanciya package garaaca xadig 820 xadig lambarka xadig lacagta afargees xirmo caadi ah normal package garaaca xadig 814 xadig lambarka xadig lacagta afargees ku shubashada ku hadalka airtime garaaca xadig 813 xadig numbarka xadig lacagta afargees muraadka Somnad waa macaamilka qancintiisa shirkadda elektarooniga iyo qalabka korontada ee National Electric and Electronic Company ma tagteen mise waad maqasheen National Electronic and Electric Company baahidaada muraadeeda dhaqankii magaaliye miyiba aad ka helayso dhalooyinkii maqal dheer iyo muuqaalba ku anfacaya misna dhowr kala nooca sida LG-ga Samsung-ka iyo waliba Sony-ga marwaxadahoo kala nooca darbi iyo miis kala saara qofba tuu ku maqsuudo qasaaladihii dharkumeedka midba nooc u samaysan hadba taad ku maqsuudo ka dooro mulki weeye war maxaa tiri intaasoo mahuraan ah muhiim oo laga maarmin National Electronic and Electric shirkadaasi ayaa laga helaa miya ma intaa kaliya waxa yaala meeshaas ma dhaweey dhagta maal qaboojiyayaal moodelo midba qaab u shaqeeyo dhammaan qalabka korontada ka heshaa sida fiilooyinka dabka leerarkii iyo dhammaan korontadoo idil ee hamoogaan ma dhaweey dhagta maal makiinada noocyo kala duwan midda shiida hilibkiyo midda shiida qudaarta iyo midda loo isticmaalo macmacaankiyo doorshe iyo makiinadii cajiinka qasaysay waan saan u muraad gudanaa mar waliba waa madasheena muhiim weeye shirkadda moobeelada casriga ka sii daran smartphone intaasoo model iyo nooca qalabka yaala meeshaas ma dhaweey dhagta maal ay si maaxda qabowga solar magac yar iyo weyn baabuurta oo dhan matoorka mashiinadii waraabkii iyo moodalkii dabdhaliyaha bateriga solarkii miisiya baabuurta midkoodii shirkadu Meris dhiman ma lahan magacyadan kor ku sheegay waad ka heliye muraadkaaga hamoogaan haddaba shirkadda National Electronic and Electric wax ay ku taalaa magaalada Kismaayo gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoyska taalada Imbratoria iyo xarunta degmada Kismaayo kasoo horjeedka shirkadda Coca-Cola wixii faahfaahin inta dheer kala xidhiidh dhageysta telefoon lambarada kala eber 6 هموغاني بانكو يدي أنا كمقنانين National Electronic and Electric Company
EVC+ adeeg hufan oo la hubo. abshirow ummadii waa tii kale irdhowdo oonku uu ku raagee arag iyo geeli maxaa adiga kuu dhaqan. axmedow ayaantan EVC-ga furtaa abaaraha la sheegay ilxumo iigu dambaysay markaan aad u wareerana ilmihii yurub joogay iyo abtiyaal xamar joogaan aayar uun u wacdaayo inta aanan dhaqaaqin akoonkan ku arkaayo islaamahoyni ogaan baan kolba in yar soo sarriftaa ee ninkaan EVC u furnayn nafsadiisa ha eedo. abshirow dhab weeyaan dalka idil ahaantiis hormuud baa akayso geeska raaskambooni ilaa raas casayr baa ishaxaada maanto EVC adeegsada. walla aabbahay waa kii safarka aaday waxaana la ii sheegay in gaarigii uu dhex kula jabay bal aan sida fudud EVC lacag uga tuuro xidig 712 xidig lambarka xidig lacagta afargeys okay lambarkayga sirta okay way u dhacday lacagtii. walla moobeelka waxbaa ku soo dhacay waayiina ma aqaan adeer maantay kaala ii diri wax moobeelka ku soo dhacay haa adeer EVC+ ayaa lacag lagugu soo tuuray. walle waa kuwa iga warqabay inay saayda iga gooday. EVC-gu wacana waa jeeb ammaanoon axad kula wadaagayn dadku siduu u aaminay u anfacay dadweynaha ma qof baa inkiri karaa EVC+. bangiga dahabshiil bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa. waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso. horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa. xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer. ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafka howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group. bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada. bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah. xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado. waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil. xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne. دار القلم لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الأساسية دكسيغا حفظنت القرآن الكريم يا تعليم أساسية إيه دار القلم ساعدني يا رحمن وقت دور لقول الله هي جدول عندك سنين يا عرور حافظ كده هذه ظروفتي اللي جريسي هيه دان شيغا ورسي تعليم دين وهرسي ما دقو دعلي الله aqoonta dararaysiyo maamul diiradda saaray dirka maanta ka caayo in dabaalbaradkoodiyo duruustooda hagaagtiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوح ونكسن دقيستيال كسو دوادا وركا سوحنما إذا عدا راديو كسمايو عدكا دولة قبلتك جوبلان قضبادا وركا سوحنما أتكو مغلي دونتان وحا كامدا وزارة الديغان كي دالحيس كدولة قبلتك جوبلان وكا هذا الشيء كالون إساقو دينتي كسو عارية حيبها كسمايو دولة الصومالية oo sheegtay in 2 milyan oo qof oo ku nool gudaha dalka ay wajahayaan cunno yari iyo biyo la'aan midowga musharaxiinta oo kulan arrimaha doorashooyinka looga hadlayay la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Soomaaliya 18 qof ayaa aan raahday dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay 24 saac inuu ka soo gudubnay cudurka COVID-19 inta uu soo ritay wararka dibaddana waxaad ku maqli doontaan dhageystayaal Iiraan oo Israa'iil ku tuhumaysa inay ka dambeysay weerarkii lagu qaaday markabkeeda waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan waa hagaag dhegaystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegaystayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku aadan tahay dhegaystayaal 15 bisha saddexaad ee maaj sanada 2021 intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkayga subaxnimo haatan u diyaar garooba dhegaystayaal dhegaysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan oo halkan uu idinkala socodsiiyo anigoo ah Kamaal Maxamed Axmed Keenan wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadashay kalluun dhawaan ku soo caariyay xeebaha magaalada Kismaayo isagoo dhintay wasaaradda waan wax ka weydiinay waxa saweyn xilligan uu kalluunka dhinto ayaa sheegtay in kalluunka uu xilligan u dhintay sabab dhinaca cimilada badda ah balse aysan jirin wax sun ah oo kalluunkaasi saameeyay haddii ay sunta jirta la arki lahaa waxyaabo badan oo badda ku jira oo dhintay sida uu hadalka uu u dhigay la taliyaha dhinaca deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland Cabdixakiin Kadiye anagu waan ka warhaynaa kalluunkan soo caariyay waana tagnay waan soo aragnay qaybtayada wasaaradda way soo aragtay ilaa xeebaha ilaa qandal hagaaga dhegaystayaal codkaasi waynu kusoo laaban doonaa hadduu alla idmo markan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda xilgaarsiinta ayaa shaacisay in 2 milyan oo qof oo ku nool gudaha Soomaaliya ay wajahayaan cunno yari iyo biyo la'aan ka dhalatay abaaraha ayaxa iyo caabuqa COVID-19 wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Khadiija Maxamed Diiriya oo ka hadlaysay shir jaraa'id ee Muqdisho ku qabteen guddiga gurmadka qaran ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ay gaartay heerka saddexaad ee qiimeynta abaarta wasiir Khadiija Maxamed Diiriya waxay tilmaamtay marxaladaha hadda lagu jiro inay sii cakirayso arrimaha bini'aadanimo ee dad ka badan 5 milyan oo haray ay ugu baahnaa gargaar bini'aadanimo in lala gaaro waxay ugu baaqday hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa maxalliga ah inay bixiyaan gurmad naf badbaadin ah waxayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqday in loo midoobo xaaladahan adeeg ee dalka ay wajahayaan wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Ducaale Beyl ayaa isna sheegay inay hay'adaha caalamiga ah ay kala hadleen in si degdeg ah ay uga soo jawaabaan codsiga dowladda Soomaaliya ay u jeedisay dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa ay ku shireen magaalada Muqdisho iyadoo oo markaasi weli aanan heshiis laga gaarin doorashooyinka dalka kulankan oo ku qabsoomay gudaha xerada Xalane waxaa markaasi lagu gorfeeyay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo khilaafka uu ka taagan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta ayaa ka hadlay shirka waxa uuna sheegay in diiradda lagu saaray sidii dalka looga qaban lahaa doorasho xalaal oo heshiis lagu wada yahay oo si nabad ah ku dhacda dhinaca kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa isna dhankiisa kulankaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in diiradda lagu saaray sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho loo siman yahay isla markaana la isla ogol yahay midowga musharaxiinta
kulan miro dhal ah ayay la qaateen labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waxaan markaasi ka wada hadalnay sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho loo siman yahay la isla ogol yahay si nabada ku dhacda ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wahagaag markan aan dib ugu laabano waraysiga la taliyaha dhinaca deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland Cabdixakiin Kadiye oo markaasi aynu ka wareysanay kalluunka isaga oo dhintay dhawaan ku soo caariyay xeebaha magaalada Kismaayo anagu waan ka warhaynaa kalluunkan soo caariyay waana tagnay waan soo aragnay qaybtayada wasaaradda way soo aragtay ilaa xeebaha ilaa qandal waa la gaaray marka kalluunkan waxa u sababa inuu dhinto oksijiintii badda oo yaraatay maxaa keenay oksijiintii badda inuu yaraato su'aasha meesha la isweydiinayo meeshaasi waxaa keeni kara abaar badda gudaheeda ka dhacda badda sida dhulka abaar aga dhacda badda gudaheeda abaar aga dhacda waxaan la yiraahdaa algal bloom aniga Soomaali kuma aqaan ama cagaarka ka koreeya biyaha ku dhasha ayaa oksijiinkii bad kalluunka inuu neefsado u diidi karta ama overpopulated oo maaragtay kalluunka la fahantiisa meel intuu isugu yimaado oo maaragtay hawada kala booba intaas baa keenta waxaa kaloo waxaa imaanaya markuu drought yimaado ama oksijiinku uu yaraado waxaa kaloo imaanaya in biyihii baddu ay kululaadaan biyaha badda markay kululaadaan waxaa keeni kara biyihii webiga aan soo geli jiray oo istaagay iyo muxuu ahaa kuleelka qoraxda labadaba way sababtaa waxaa kaloo kalluunka kala dili kara infectious disease waxyaabaha la yiraahdo ama parasite waxyaabaha la yiraahdo ayaa dili kara cudurro u iman kara sida xoolaha cudurro ugu yimaadaan bini aadamkuna cudurro ugu yimaadaan ayuu kalluunkuna cudurro ugu yimaadaan kalluunkan hadda soo caariyay marka aan noqono kalluunkan hadda soo caariyay waa kalluun dhiman jiray sanadkiiba mar dhiman jiray waa kalluun sanadka waqtigan oo kale aan ku ogeyn inuu dhimanayo way badda soo caarin doonto aan ku ogeyn weeyaan soo gara kaasi marka sanad kasto waqtigan oo kale bisha March ilaa iyo April baan qiyaasayna inuu kalluunkan soo baxo badda u soo baxo marka sanadkan March buu dhacay waxaa kaloo dili karaa seed ku xaqiijiseen in ay kalluunkani uu yahay kalluun sanad kasta xilligan dhiman jiray taasee ku ka wasaarad ahaan aad ku ogaateen waa su'aal fiican kalluunkan hore ahaan buu soo bixi jiray marka uu hore u imaan jiray marka waad ogaan kartaa waqtigan uu imaada waqtigan uu soo baxa oo isagoo dhinto badda u soo baxa bishan March ama bisha April buu labada bilood buu isagoo dhintay oo ku soo bixi jiray marka waan filan doonaa haddii qofkii Ilaahay gaarsiiyo 2022gana sidan u baan filan doonaa inuu yaraa waqtigan oo kale inuu soo baxo dana waayo dad badani waxay aaminsan yihiin in kalluunkan la sumeeyay oo badaheena maadaama dawlad kantaroosho oo xoogan aysan jirin sun lagu daadiyay sidaana uu kalluunku ku dhintay dadkaas maxaad leedahay fikirkaasi ma qabtaan idinka ka wasaaradahan maya ma qabno simple jawaabtaada maaragtaa markaan fududay ma qabno baaxadda badda anagoo la socono inta badda la egta biyaha ay wada intaas milyan oo gigaliters in la yiraahdo waa la sameeyay oo sun baa lala gaaray waa wax macquul ahayn dadka aqoonta u leh badaha markay isweydiiyaan ama dadka research ka sameeya markay isweydiiyaan dadka marine biology markay dadkaas oo dhan waxay aaminsan yihiin inaan badda sun la gaari karin waxyaabaha idinka idin cadeeyay ama baaritaanada idinka aad samaysay idin cadeeyay in kalluunkan uu yahay kalluun si kala u dhintay maxay tahay wadooyinka aad marteen horta waan soo eegnay horta waxa waaye waxaa dhici kara horta kalluumada qaarkood waxay u dhintaan baddii oo ku daaratay oil ama crude oil ama waxaa la maaragtaa shidaalkan ceeriin markay badda ku daataan waan korkiisaan ka aragnaa horta korkiisa laga arkaya dhinaca kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta ayaa shaacisay in 18 qof 24 saac inuu kasoo gudubnay ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19 waxaa sidoo kale la diiwaangeliyay 244 kiis oo cusub
waa tiradii ugu badneed oo 24 saac gudahood u geeriyootay cudurka covid-19 oo si xowli ugu sii fidaya Soomaaliya haba ugu badnaaday gobolka Banaadir ee dadka ugu badani ay ku nool yihiin kiisaska cusub ee la diiwaangeliyay waxaa ugu badan Puntland oo laga helay 144 kiis waxaana ku xiga Somaliland oo in markaasi laga helay 45 kiis gobolka Banaadir oo horey u ahaa meesha ugu badan ee kiiska covid-19 hadda waxa uu ka yar yahay sidii hore waxaana laga helay 29 kiis oo cusub wasaaradda caafimaadka ma sheegin dadka u dhintay cudurka meelaha ay kala joogaan balse maalin kasta tacsiid dadka u dhinta cudurka ayaa laga dareemaa baraha bulshada maanta ayaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay ka dhaqan geliso dowladda awaamiir dadka qasab looga dhigayo inay xirtaan maaska ama afxirka وهجاج هالكاد وركاسي كلا سعوتان دقيستيال وإذا عدى راديو كسمايو عودك دولة قبلة كجوبلان مركان إنتان نقول قلنا ورك الدبدة وحد كسر دواتان حبنت عيارها وركا صباح وحنا لا ديارة وريها يجا عبد الرزاق على عبد الله ما تسند كمان dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warkaan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford guul dirqi ah kaga gaartay kooxda West Ham kadib markii ay kaga soo adkaatay Every hal ciyaartan oo qaybkeeda kulamada toddobaadkan horyaalka Premier League qaybtii hore ciyaarta ayaa labada kooxood Manchester United iyo waliba West Ham ku kala nasteen barbaro Every qaybtii labaad ee dheesha markay dib isku soo laabtay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo sameeyay fursado badan oo goolo loo filan karay daqiiqadii 53aad kooxda Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kadib markii gool uu iska dhaliyay xidig ka tirsan naadiga West Ham ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay Every hal Manchester United ee kaga soo adkaatay kooxda West Ham oo ay ku booqatay garoonka Old Trafford haatan ay ku jirta farqiga u dhaxeeya iyagoona hogaamiyaasha horyaalka ee ah Manchester City 14 dhibcood ay ka sareyso xubinta ciyaaraha warka waa naga intaan dib idin ku celiyo Kamaal ee qeybaha warka ka dhima وهجاج إنه هالكاسي كجسوا جذب نحوين عيارها وركا سواح مركن وركا دبدة إسرائيل ياد وجو بدنتها إن كدم بيسي ورتضوات كان يكدع عيب بدأ من التريامكا أو وحي اللي مركب حمول له هو إلى ذا هاي دولة إيران أنا سيداسي الشيء دم ببارر إيران أو كسو حيجتي وز 40 تا إيران مركب كشهر أيها وحى مركاسي وكدع عيب waxaa ku dhacay walxaha qarxaataasi oo sababtay dab yar oo ka kacay balse cidna wax kuma noqonin sida ay sheegtay Iiraan laba ilwareedyo amniga badda ah ayaa sheegay in markabka si ola kac ah loola beegsaday qarxaasi wasiirka gaashaandhigga Israel ayaa diiday inuu si toos ah uga hadlo dhacdadan hase yeeshee waxa uu sheegay in Iiraan ay si joogto ah hub ugu dirto maleeshiyaadka ka hoos shaqeeya gobolka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa isna sheegay in warbixino ay xaqiijiyeen uu markaasi uu dhacay ficil waxyeeleyn kara qarannimadeeda xadgudubna markaasi ku ah weerarkaasi caalamiga qaynuunta caalamiga baariyaasha Iiraan ayaa sheegay in walxaha qarxa ee ku dhacay markabka ay suuragal tahay in laga soo tuuray diyaarad ayna ku dhaceen mid ka mid ah konteenarada markabka saarnaa warkiisu waxaad kala socoteen idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland dhageystayaal xilligan waa naga inta
Ultimo